qarax ismiidaamin ah ayaa goordhow lagu weeraray xarun wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ay ku leedahay ex control afgooye ee magaalada Muqdisho. Kontaroolkaasi oo ah dhanka magaalada Muqdisho looga baxa marka loo socdo dhinaca degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa durba xiray barta kontarool ee xarunta wasaaraddu ku leedahay ex control afgooye oo ciidamo booliis ah ku qaadaan canshuuraha gaadiidka isaga kala goosha gobolada dalka Soomaaliya iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho. sida la ogsoon yahay xilli aroor ah ayay ahayd uu qarax halkaasi ka dhacay, waxaana aad u isticmaalaa dadka ka yimaada deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose sida degmada Afgooye, ceelasha biyaha, Garas Baaley, Siinka Dheer iyo sidoo kale Tabeelaha oo inta badan ay degan yihiin dad shacab ah iyo barakacyaal kuwaasi oo siyaabo kala duwan u soo aada magaalada caasimadda ee Muqdisho. sidoo kale ex control afgooye waxaa aroortii dhooban arday aad u fara badan kuwaasi oo halkaasi ku suga basaskii u qaadi lahaa gobooda waxbarasho ee ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana laga cabsi qabaa in qaraxaasi uu saameyn weyn ku yeeshay dadka halkaasi ku sugnaa iyo sidoo kale kaalin shidaal oo iyaduna aan sida uga fogeen halka canshuurta lagu qaado, taasoo iyadana sababi karta in ay baahiso qaraxa holiciisa, maadaama waxa meesha yaalo ama meesha lagu iibinayo kaalinta shidaal ay ahaayeen baasiin iyo naafto. gaadiidka gurmadka degdega ayaa ku qulqulaya goobta uu qaraxa ka dhacay, waxaana jiro dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qaraxaasi walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha guud ee halkaasi ka jira. wixii ku soo kordha wararkaasi waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe.